Assalaamu calaykum. Soo dhawaada channelka Dhalaan Production. Caruurey maanta waxaan ka sheekeynaynaa magacyada xayawaanada duurjoogta ah. Libaax. Libaax waa xayawaan aad u weyn oo duurjoog ah oo hilibka cuna. Libaaxa waxaa lagu magacaabaa boqorka xayawaanka sababtoo ah waa ugaarsadaha dhammaan noolaha ku dhex nool keymaha. Libaaxa kan lab waxaa loo yaqaanaa aar. Ka dheerdigna waxaa loo yaqaanaa gool. Libaaxa waa xayawaan aad u khatar badan. Libaaxa waxa uu cunaa hilibka xoolaha, dadka iyo dhammaan xayawaanka. Libaaxa wuxuu isu raacaa raxan 10 ilaa 15. Libaaxa dhadiga wuxuu u baahan yahay maalintii 5 kg oo hilib ah. Kan labka ahna wuxuu u baahan yahay 7 kg oo hilib ah. Maroodiga waa xayawaan ka mid ah duurjoogta ugu xajmiga iyo qarada weyn noolaha dhammaantiis. Waxaa lagu sheegay inuu yahay noolaha labaad ee ugu weyn dunida. Wuxuu ku xigaa nibiriga iyo kan ugu weyn oogada dhulka. Maroodigu wuxuu ku nool yahay meelo badan oo dunida ah oo u badan Afrika iyo qaaradda Aasiya. Sidoo kale wuxuu maroodigu kala baxaa laba nooc oo kala ah maroodiga cad oo laga helo qaaradda Aasiya iyo maroodiga madow oo ku dhaqan qaaradda Afrika. Maroodiga gabi ahaantiisba waxa uu quutaa dhirta. Geriga waa xayawaanka ugu dheer adduunka marka loo fiiriyo kuwa dhulka ku nool. Kan ugu dheer dhererkiisu waxa uu gaaraa ilaa 5 mitir. Geriga wuxuu ku nool yahay Afrika, gaar ahaan bariga Afrika. Soomaaliyana waa uu ka buuxaa sida koonfurta Soomaaliya. Sidoo kale waqooyiga wuxuu waqti hore ku noolaan jiray gobolka Sanaag. Geriga waxaa lagu yaqaanaa isla socodka sida guutada ah. Wuxuuna gaarayaa 50 geri marka ay isla soconayaan. Geriga marka uu daaqayo waxa uu fiirsadaa geedaha dhaadheer. Geriga waxaa caleemo ka goosan karaa geedaha qumbaha ah. Waxaana sii caawin kara carabkiisa oo gaaraya 45 sentimitir. Gerigu waa xayawaan tuutaysan. Wuxuu jirka ku leeyahay dhibco sida shabeelka ama harimcadka. Gerigu wuxuu noolaan karaa 25 sano. Laakiin kulligood maaha. 50% ama 25 oo ciyaalka ayaa gaari kara da'daas. Wiyisha waxay ka mid tahay duurjoogta naasleyda ah ee waaweyn ee ku nool labada qaaradood ee Afrika iyo Aasiya. Wiyishu waa nafley aad u weyn oo laba gees wajiga ku leh. Waxaa ku gaashaaman harag aad u qara weyn ama adag. Jeerta waa naasleyda saddexaad ee ugu weyn inta wax nuujisa. Kadib maroodiga iyo wiyisha cad. Waxay joogtaa badanaa jeertu webiga hareerihiisa ama gudihiisa. Waxay ku dhex dhashaa jeertu biyaha dhexdooda. Shabeelka waa xayawaan ka mid ah bahda bisadaha kaasoo cuna hilibka isla markaana ku nool duurka. Shabeelku wuxuu ku noolaan karaa jawi kasta, meelaha roobka badan, buuraha dhaadheer iyo keymaha waaweyn. Shabeelka qaaradda Aasiya wuxuu leeyahay xariijimo huruud ah iyo madow ah. Laakiin noocyada ku nool qaaradda Afrika waa uu ka midab duwan yahay. Sidoo kale waxaa jira shabeel midabkiisu caddaan yahay oo loo yaqaan shabeelka cad. Harimcadka waa xayawaan ku nool duurka ama baadiyaha. Wuxuuna kala leeyahay qaaradda Afrika iyo Aasiya ayuu ku kala nool yahay. Kuwa Aasiya jooga waxaa laga keenay Afrika. Harimcadka waxa uu u eegaya shabeelka. Dhibco ayuu korka ku leeyahay. Waana xayawaanka adduunka ugu orodka badan. Waraabe ama dhurwaa waa xayawaan duurjoog ah kaasoo cuna hilibka. Waraabuhu waa bahal xooggan. Waraabaha wuxuu leeyahay ilko mishaar ah oo uu xoolaha ku cuno. Dameer farow waa xayawaan qaraabo la ah dameerka kaasoo si khaas ah looga helo qaaradda Afrika. Dameer farow wuxuu leeyahay xariijimo ka kooban caddaan iyo madow, taasoo ka dhigta xayawaan leh midab soo jiita dalxiisayaasha. Daanyeer waa bahal ku nool caalamka. Waxa uu badan yahay qaaradda Afrika iyo Aasiya. Daanyeerku waa bahal geedaha fuula. Waxa uuna u dhisan yahay sida bini'aadamka oo kale. Yaxaas waa bahal aad u xooggan oo leh af dheer iyo ilka badan. Wuuna jir adag yahay. Yaxaasku waa bahal aad looga cabsado. Waxaana ku nool yahay xeebaha, webiyada iyo harooyinka. Diinka waa xayawaan qolof adag leh. Wuxuuna inta badan la arkaa xilliyada barwaaqada ah. Diinku wuxuu hoos galaa geedaha hoostooda. Dawacada waa xayawaan hilib cun ah iyo dhir cun ah, taasoo ka tirsan naasleyda. Sida caadiga ah dawacadu waxay leegtahay eyga, inkastoo qaarkood ka weyn yihiin jir ahaan, halka kuwa kalena ay ka yar yihiin eyga. Dabagaale waa nooc ka mid ah xayawaanka yaryar kaasoo ku nool geedaha iyo godadka dhulka hoostiisa ah. Goroyo waa nooc shimbir
oo kale ah, taasoo ku dhaqan deegaano badan oo ka mid ah Geeska Afrika, gaar ahaan cariga ay ku dhaqan yihiin dadka Soomaalidu, waxayna ka mid tahay kuwa ugu dheereeya xayawaanka. Bakayle waa duurjoog iyo gurijoog oo dadkuna waa dhaqdaan. Bakayluhu waa xayawaan naasley ah, kaas inta badan duurka ku nool, laakiin la dhaqan karo oo carbis noqda. Bakaylaha waxaa loo dhaqdaa in hilib laga helo iyo in wehel iyo qurux ahaan loo haysto, waxaana ka mid yahay kuwa ugu dheereeya xayawaanka. Doofaar waa xayawaan ku nool adduunka. Doofaar waa uu kala duwan yahay. Mid waxaa jira oo doofaar duureed ah oo miciyo leh, jirkiisuna uu madow yahay. Midna miciyo ma leh, jirkiisuna waa guduud biyo biyo ah. Doofaarka gaaladu ayaa cuna, gaar ahaan dadka Yurubiyaanka ah, iyagoo hilibkiisa cunaan, maqaarkiisana dharka ku samaystaan. Doofaarku waa xayawaan keliya oo Ilaahay xaaraan ka dhigay ummadda muslimiinta inaanay cunin. Xayawaanka doofaarka lama taaban karo oo hilibkiisana lama cuni karo. Doofaarka ilmo badan ayuu u dhalaa, isagoo xabadka ku leh naaso aad u badan oo ilmo badan hal mar nuujin kara. Doofaarka saxaradiisa ayaa meel ka duwan noolaha ayay martaa, taasoo ku abuuraysa jeermiska aan ka go'in ama aan la dabar goyn karin. Waa xayawaan aad nacas u ah. Xayawaanka waxaa laga helaa meelo badan oo dunida ka mid ah. Xitaa doofaarka qaar ama nooc ayaa ku nool Soomaaliya iyo wadamada Afrika. Deero waa xayawaan duurjoog ah, gaar ahaan asalka naasleyda ah oo ku nool qaaradaha oo dhan, gaar ahaan meelaha kulul. Deerada ayaa lagu tiriyaa noolayaasha adduunka ugu dheereeya, tii oo ordi karta 100 kiiloomitir saacaddii. Afrika iyo Koonfurta Aasiya ayay aad ugu badan tahay. Noocyada deerada ayaan lagu soo koobi karin, waxaana lagu qiyaasaa ilaa 15 nooc. Deerada ayaa jecel inay u socoto raxan. Deerada lab ayaa la yiraahdaa deer, ta dhadigna waxaa la yiraahdaa deero. Deerada ayaa ku dhasha 5 bilood sida cawsha oo kale.